waxaa maanta magaaladan Gaarisa si rasmi ah looga furay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee dabagalka booliiska oo loo soo gaabiyo IPOA kaasoo u adeegi doona saddexda dawlad goboleed ee Gaarisa, Wajeer iyo Mandera. Waxaan furaynaa xafiisadeena cusban ee Gaarisa. Asante sana. Kwa hivyo tutakuwa na sehemu hapa nje ya kupiga picha pamoja na wageni. Na wananchi wote kama una shughuli yoyote office imekuwa launched. We have a complaint register now. Kama una complaint, kama unataka kufanya commendation kwa askari, fanya sasa hivi. Kuna desk pale nje itashughulika wakati huu tutakuwa. Responsibility as a police officer is protection of life and property, maintain law and order, and arrest the lawbreaker. We are 20,000 sometimes or 10,000, but we are to administer 1 million of public. That we don't understand each other. So in that interrogation, pursuing the criminals and sometimes makes us to a little people see that we can break the law. But we are not there to break the law. Ours is to pursue and protect the persons who are sleeping, those who are doing their business, like Mr. Dubat, those who are in the bush with their cattle and camels, we have to take care of them. So when we are pursuing doing this job, is when perhaps there is a fraction of in between us and the public. But we discuss the police. Police, when we're in the bush, our motto is seen before seen, and make the right detection of what we saw. xafiiska maanta naloo furay IPOA wuxuu ka salaysan yahay meel loogu calaacalo booliista haddii aad ka caban rabto cabashada booliista meel la geeyo ayuu ka mid yahay. booliistana ma aha booliista dharka buluuga keli qabto, waa booliista, waa AP-da, waa Brisonka, waa Forest, muxuu ahaayay dadka uniformkaas qabo dhan ayay ku salaysan yihiin. wixii aad halkaa ka heli weyso intaad ku soo calaacalaysaa marka ayagaa tilaabo qaadayaan. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 8 gobol oo Kenya ay ka mid ahayd markii intii wali gobolaysiga ay bilaabeen. xafiiska afraad oo la furo oo midkii ugu horeeyay Nairobi buu ahaa, Mombasa iyo Kisumu anaga hadda ku xignaa. waxyaalaha carqaladda ku ah nolosha dadka Kenya waxaa la hagaajiyay waxa la dhaho Bill of Rights, xuquuqda ninka wadaniga uu leeyahay constitution-ka lagu daray. xuquuqdii sidee looga turjumi karaa marka? waxaa looga turjumi karaa in la helo guddi raaciyad ah oo madax bannaan oo anshax xumada booliiska Kenya iyo administration police fiiriyaan. marka xafiiskan waxa la dhahaa xafiiska afraad way ku mahadsan yihiin nimankii meeshan xafiiska keenay. wuxuu kordhin karaa dadka inuu sidii rida markii dhagta la qabto way eedaami dadka markii wax lagu suubiyo inuu shanqaro oo iska sheegto dhibaatada lagu hayo ayuu kordhinay xafiiska. laakiin maxay ku filan tahay? waxay ku filan tahay ninka wadaniga ah inuu og yahay xuquuqda uu wadanka ku leeyahay. Kwanza IPOA ni nini kwanza? What is IPOA? Yani in full. IPOA unajua hiyo ni abbreviation ni Independent Policing Oversight Authority. Na IPOA iliundwa kwa njia gani? IPOA iliundwa the task force, National Task Force on Police Reform 2009 ya yule alikuwa Justice Philip Rasley. Na mimi nilikuwa member wa hiyo task force. Na tukapeana recommendations 200 wakati huo. Your chairman Macharia Njeru was also a member of the task force. Tulifanya kazi kwa miezi 9. Tukapendekeza recommendations 200. Moja yao ilikuwa ni kuunda halmashauri ambayo itaangalia kanuni ya polisi IPOA. Tunajua kwamba kuna polisi wako na internal affairs unit, lakini
Tumesema saa ingine hiyo internal affairs unit pia nataka iangaliwe vizuri. Pia tuka recommend the creation of National Police Service Commission, ambaye sasa hii Mr. Kabuludi ndio chairman. So I understand how all this thing evolved.